السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن وناكسن إذا لهانتين بداوضة يا شيء قيمها إيه قدرين تمضن إضافها عالم كان قد داوضة ملك استاد جوكتاني يحل والبايدين تهي كسر دواذا ورك السما تي في قضبضة أدورك يقعاوكم مقلدون تانا وحا كمدا قبلها بريوين واي دقينيهين بركاحكم النانسر ودافية أيا هبيراتيان هيسن أذيك عافيماد laba boqol oo qoys oo barakaca kala jooga qabalaha afdam iyo qabalaha hoos yimaada baabaco ayay hay-adda city relief oo kaashanaysa ururka africa's hor ee taaliyada reer sweden gaarsiiyeen deeq raashin ah qodobadaasi oo faahfaahsan ayaan isugu soo laaban doonaa hadduu alla idmo isku soo noqod wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan aad sida tooska nooga dheehanaysaan waa telefishinka sima haatan warkiyo fidsan qabalaha bariweyn oo ay degan yihiin barakac kumanaan sare u dhaafaya ayaa haba yaraatay aan haysan adeeg caafimaad la socda faalada warkan socdaalkii bariweyn ee ay ku tagtay wakaalada sima waxa ay kusoo indha-indhaysay xarunta caafimaadka ee ka jirta qabalaha bariweyn waxaanan halkaasi aan ku wareysanay geelle maxamuud raage oo isagu inooga warbixiyey xirfadiisa iyo baahiyaadka dhanka caafimaadka ka jira bariweyn wallaahi runtu waa sadaqada wax aan ma garanaysaay jaamacadan ka soo baxay ma jirto in muddo Djibouti baan joogayay ilbaabkana waan furayay taageerahana waan ahaa dhakhtarka weyn Balatiya Djibouti baan muddo joogayay kolka dadkuna asalka mootarka ninba intuu ilaahay siiyo iska leeyahay khibrad ahaan wixii maskaxaan u hayo aragti isha wixii aan ka bartay iyo sidii markuu dhakhtarku wax dhakhtareen anag joogayay sidii baan ku dhaqmayaa xaqana in muddo aan ku noolaa daabyada cadayti baan galeeyahay kolka cidii iga bukoota cid booguma qeylsaneen cid ila zaarana way soo doonanaysay oo waan irbadaynay amba gacantan ka siinay irbada amba siroogan ku joojinayay amba masigtaan ka irbadaynay wixii aan garanayay ku irbadaynay xagga daabyada ahaanta haddaan joogo xamashiba dadka daweynaysa laakiin kolkii jaakaha loo soo baxo waxa la area wixii noo dhow oo dhan baa ay soo doonanaysay waan daweynay kolka waxaan jaamacadu ka soo baxay ma jirin laakiin aragti iyo barasho dawada wixii aan garanayay baan ku daweynay waxa jira wax kastaba ku sugu leeyahay wax ku qasbada jira barakac baan hayno waanaga sheegayna ilaa 200 kiilo baan ka soo barakacnay kolka jabkii iyo barakicii dadkii halkan qab ku soo yiri isugu yimidina sida xooluhu u dhintay sida xoolaha markuu u dhintay ayaantiiba 3 qof 4 qof 5 qof laba maalmood isku xigtay 8 qof baan asnay 3 kol iyo 5 kol waa laba maalmood waxaas shuban baa ku dhacay dadkii sida markuu u gaay wax dhaqaatiir oo xirfad lana miligan weynay dawina miligay tamaday cidii inoo keentay nagu soo gargaarsan ku kay iska laabantay taageero waxaan ka qaban kareynaa ka qabanno intii aqoon ahaan aan garanayay intii ma la dhaxsodan ku daweynayay oo rax weyniga arkayo dumarka waan ka dhalnaa lagu leeyahay dibiiba yaa wax kasta ba dhig la'aan ku dadka darooga dhalay meel haloo la dhigana waa la waayay guriga la'aan biyo la'aan dawo la'aan xirfadlayaal ay jirin idilka ba waxyaabaha ishaado oo macallin maanta dhulka iska arkaysi wallaahi ma dhib la halkan haddana rajaan qabnaayo walaalahayeen suuga markay yahay waan sugnaa dawladda walaalahayeen sugnaa waxa la yahay matiir ku tiirsanow mar haddaan uma islaananahay tolaana ma sheeganayno qadarkana ilaahay baa iska leh fadhiga uma ku sugaynaa waxaan garanayna waan ugu sii kalmaynaa qofkana dumarka suuqa jooga baa siday kolba mid ugu hoos fadhiisanaysa ilaahay uu leeyahay iska dhala ilaahayna wax ka weyn ma jiro taageero ambalaas oo naga qaaday wali oo laga soo umriyay anigu ma garanayo magaalada bariweyn waxay in ka badan 100 kilomitir u jirtaa Casbuli waana goob buuraley ah oo aad u adag in la maro xarunta caafimaadka ee bariweyn ma laha ambulance hooyooyinka ku dhaqan bariweyn haddaba sidee ayay u umulaan halkay ku umulaan yaase ka umuliya waa kan haweenka ku sugan bariweyn oo inooga warbixinaya qaabka ay u umulaan iyo cidda ka umulisa iyo halka ay waliba ku umulaan markaas 2 sano joogo halkan aqaladan aan galiya aqaladan aan joogo imika waxaan u baxay xaqan xoogan idjana galay xaaladahan ka xijira bariweyn xoog bay u dareen sida walaaliheen in badan bay ka soo hadleen haweenku waa kan sheegaynay islaanta fool qaadadii ambalaas ma jiro way fooshaanoo xalay mid baan ka dhalinayna ku soo dul jeednaa
hooyada markay fool qaado de heblo yeedhan baan nidhaayo waan hoos fadhiisanaan waa kay ka warbixinaya haweenka miyiga shuban baa jira ciyaal ku dhacay ma tagaan xumad baa jirta ciyaalku xumad waalan ay keenaan duri wax la yaa ciyaalku inka qabow baa soo galay kulayla ma joogno qabow wax soo galay dhulka meeshaan joogna leyd xoogay leedahay oo aad bay u qabowda dhaxanta markay ciyaalka taabato way qufciin oo labada feelood bay isku seen cad bay keenaan marka dawadii la siinay halkan bay taala qataradu ma haysanaa ku sugaha wiilkani waa ku suga weeyaan kanin kira xanuun baabihira madaxdii war noo dhiin baan nidhaayo kaan baan ka qaadanay dawo kale ta oo isticmaalo way taala dawada hay'ad waxaan oo keenay nimanka qurba joogta wiilasha qurba joogta oo keenay dawo fiican baata odaygan jaban meesha jiifa dawadii lagu kabilaa imka waa lagu xuka jab dawo lagu kabilaa way taala baalki la gelinayo lagu kabay dadka halkan uu ku jira yaa ku kabay odaygan bukaa jiifa dhaxan baase tiimbi ma garanaysa dhaxantii baase tiimbi waa ka u daadanaya tiimiisa saa u daadanaya oo qufacaya hadii jeer way taala dawadi qufaca way taala tiimbida dhaxanta caadiga ma garan halkan ay ku jirta ma garanayna dib qabrada ma haysano 200 oo qoys oo barakaca kala jooga qabalaha Afdam iyo qabalaha hoos yimaada Baabaco ayay hay'adda City Relief oo kaashanaysa ururka Africa's Horn ee Jaaliyada reer Sweden gaarsiiyeen deeq raashin ah faahfaahin warbixintaas ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Ciise hay'adda City Relief iyadoo kaashanaysa ururka African Horns iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Sweden iyo laba masaajid oo Stockholm ka dhisan waxay gaarsiiyeen gurmad raashin ah barakacayaasha ku sugan magaalada Afdam iyo qabal hoosaadka Baabaco oo dhan 200 oo qoys raashinkani ayaa markii uu tagay waxa halkaasi ku gudoomay gudoomiyaha magaaladaasi Afdam Xasan Jibriil Dugsiye oo gudoomiyaha degmada Afdam kulay gargaar ayaana soo gaaray ayna soo gaarsiiyeen walaaliheen jaaliyada gobolka City gaar ahaan hay'adda City Relief ama ururka Africa's Horn reer Sweden iyo masaajidada iyagoo kaashanaya waxay noo keeneen 200 oo qoys oo kala ah degmada Afdam oo 100 qoys ah iyo qabalaha Baabaco oo iyagana 100 qoys ah way ku maasan yihiin walaalaha kale ee Soomaaliyeedna waxaan leeyahay in la isgargaaro waa wax weyn waa wax muhiim ah weey in maaragtay ciidaha kale ee iyagana daawanaya inay ku dhiiradaan walaalahood gaar ahaan waliba City dhibaatooyin badan baa iska jira oo xaqii shacabka ayay ka maqan tahay marka walaalaheen waxa ay keeneen waa wax lagu farxo dad walaalaheen dadka waa loo baahan yahay inaan garab joogsano inaan gacmo furan kaga qaabno waa welcome baan leenahay soo dhawaada baan leenahay xaqana waxay ahayn saddex fees bay kala yihiin waxay u kala degan yihiin Afdam iyo Baabaco iyo Casli saddex bay xaqan marka saddexdaba kulay waa tempo weeyaan wax joogta ama jiro mar waa la soo gaarsiin way joogsanay saddex bilood dhowr bilood kadib haddana waxba imanaya marka laakiin waxa iska jira shock wax la yiraahdo oo ka baxsan sometimes tii iyagoo sugaya tu kala imanaysa iminka sidii kale waa gargaaroon marka dad hay'ado sidaa ay iska jiraan oo gargaara gaar ahaan anaka xaqan wax baxdan waxa nagala qabtaa hay'ada Save la yiraahdo oo wax badan nagala qabata iminkana laftarkeega idinkana iyadoo baan ila joogtaa marka soo dhawaadaan ilaahay barakacayaasha qaar oo mikrofoonka ay la dhaxmartay wakaaladda wararka ee Siima ayaa waxa ay u mahad celiyeen dadka qurba joogta ee arintani ay ka timid iyaga oo sheegay in Allah xasanaad ugu bedelo waxa kale oo ay barakacayaashu ay sheegeen baahiyaadka goobtaas iyada ku haysta dayadu way adag tahay walaalkay xaaladayadu way adag tahay raashinna maanta in muddo badan rabadaankii dabadii raashin ma qaadan hadda imika raashinkan ayaa noogu hora wax raashin oo qaadanana ma jirto waxa hay'aduhu laakiin way yimaadaan laakiin wali wax ay noo keeneen ma jirto hadda imika ayaa noo keenay raashinkan dadka walaalaha iyaga ee qurba joogta ee raashinka noo keenay mahad ayaanu celinaynaa sida ilaahayna agajisa ay siiyayaka magaalada Afdameed waan iskagana nool laha niman guri lahaynina kuma nool dhaxan godol la'aan intuba way nahaysa guri la'aan caafimaad la'aan
intuba wayna haysataa raashin goormaan ugu dambeysay qaadatiin raashin waxa noogu dambaysa rabadaanka rabadaanka dib nolosha sideed u maareynaysaa waa la iska nool yahay una wixii alla na siiyo baan iska cunaa waa ka dhulkii inagala soo qaatay iyo waxaad ku laamatay waan rabnaayo habeen mid inaan dhaxna ma doon inaan guryaha iyaga iska tagnaa doonayn guri la'aanta aan celinays meelaad gurina ku lahay meelaad jaga ku lahayn haddiiba shiraacaan helaan ku buulan waa dhibaato waa ka inaan iska laabanno waan jecella waa hagaag daawadayaal waa naga intaa warbixin idinku talagalay caawa ee sida tooska idinkaga imanayay telefishinka Sima warkan waxaa idin la socodsiinaysay anigoo Saynaba mar kale intaynu hawada ku kulmi doono waxaan idinku sii dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh